assalaamu calaykum. nin saaxiibkaya oo dhanka tiknoolajiyadda aad ugu faradhuudhuuban ayaa mar kasta igu yidhaahdaa aadanow, isbeddelladan adduunka ka dhacaya marka loo eego wakhtigan aynu ku jirno caalamku wuu foolanayaa tiknoolajiyad ahaan, wuxuu dhali doonana lama garanayo. hadalkiisaasi ilama fududa. 10 sano meelahaas marka la joogaba isbeddel weyn oo tiknoolajiyadeed ayaa caalamka ka dhaca. shirkado 10 sano ka hor hogaaminayay tiknoolajiyadda caalamka sida Nokia, Sony iyo BlackBerry ayaynan maanta badanaa magacooda maqlin, qaarna wayba xidhmeenba. kuwa maanta adduunka hogaaminaya ee Samsung iyo Apple-na iyaga laftooda ayaa maanta gaadhay heerkoodii u sarreeyey, oo Apple-na waxay maraysaa iPhone 14, Samsung-na S22 Ultra. talow iyaguna sannadaha soo socda ma noqon doonaan magac la xasuusto in beri la adeegsan jiray. marka aynu fahanno xogtan aynu barnaamijkan ku wadaagayno ee ah taleefanka Tesla ee Elon Musk uu soo wado, ayuunbaynu su-aashaas ka jawaabi karnaa oo saadaalin karnaa. Elon Musk, ninkaas maalinba warka cusub la soo shirtegaya, maruu cadar la noqdo, gawaadhi koronto ku shaqeeya, dayax gacmeedyo iyo Twitterka oo uu gatay ayaa markana adduunka kaga yaabsan doona mashruuca hadda in farta laga qaado ku dhow ee moobilka Tesla. muxuu yahay haddaba moobilkaasi? waxaa kala jira 2 eray oo la kala yidhaahdo damac iyo xasad. xasadku waa inaad qof wax ku dheer jeclaato in inta uu waxaas waayo oo adiga kula mid noqdo oo mustawahaaga uu soo dhaco. damacuna waa inaad jeclaysato inaad heerkiisaas gaadho ama aad ka guud martaba. haddaba qorshaha uu Elon Musk qaatay iyo moobilkan uu soo kordhiyey uma muuqda xaasidnimo ah dadkuwa way sameeyaan moobilo ee aadba samee, ee waxa uu muuqdaa damaca samee moobil ka awood badan, ka saamayn badan, kana soo jeedasho badan. iPhone 14 iyo S22 Ultra Samsungba aynu dhaadhacno markaa xogaha taleefankaas. qodobka ugu muhiimsan ee uu yeelanayo Elon Musk moobilkiisaas uu bixiyey Pi, calaamadii xisaabta iskuulka aan ku dhigannay. Pi waa inuu internetka marka ay noqoto toos ugu xidhiidhsamo satellite-yada Starlink ee shirkadda SpaceX ee isla Elon Musk uu leeyahay, taasoo aanay lahayn moobilada ka bulsho ahaan aynu isticmaalnaa. waxaana xawaaraha internetka ee ilbiriqsigiiba la saadaalinayaa inuu noqonayo 200 oo megabyte, yacni farta oo aad saarto waxa aad doonayso inaad soo download garaysato iyo inuu kuu soo dhaco ayaa isxiga. oo haddii tusaale ahaan filin 1 GB aad soo shubanayso, 5 ilbiriqsi gudahood ayuu kuugu soo dhacayaa. awoodda iyo xawaaraha internetkaas dartii umana baahna taleefankaasi in loo sameeyo agabka khadka internetka ee daytada aynu ku isticmaalno process gareeya, ee khadkiisa si wireless oo aanu cidna u daba fadhiisanayn ayuu dayax gacmeedka uga soo qabsanayaa. shirkaddaas SpaceX ayuuna qofku subscription billa ah siinayaa oo internetkaasuu sida fudud ku helayo ah. shirkaddaas Starlink ee isla Elon Musk uu leeyahay ee dayax gacmeedadaas lehna tirada satellite-yadeeda ay hawada u dirtay waxa lagu qiyaasaa 40,000 oo xabbo. joog hoosena way joogaan oo dhulka aad ugama foga, taasoo sababaysa si dhaqso ah oo weliba xooggan inay taako kasta oo dhulka ahba u gaadhsiiso internetka. dhanka kaamiradaha waxa uu yeelanayaa taleefankaasi 4 kamaradood oo xagga dambe ah oo awooddoodu ay tahay 108 megapixel, ahna awood sawir-qaadis ama muuqaal duubis oo aad u weyn, iyo kamarada selfida oo weliba lagu xusayo inay in badan ka tayo badnaan doonto selfiyada aynu hadda haysanno. kamarada selfida ahina shaashadda gudaheeda ayay ku jirtaa oo lama arkayo, halka moobilada kale ay muuqanayso selfidu. shaashadiisuna waxay noqonaysaa mid in badan ka quality badan adeeg ahaan iyo isticmaal ahaanba shaashadaha taleefanada smartiga ee aynu naqaano oo 4K ah. 4K ma aha shaashad caadiya, waxa sii dheer in storage-kiisa ama mugga qaadkiisu uu noqonayo 2 terabyte. wow, xajmi cajiiba weeye. laptopkayga ayaa hadda 2 terabyte ah, weliba ay sii dheer tahay marka aad u baahato inaad storage-kiisa memory-giisa wax ka bedeli karto amaba aad iska bedeli kartaba. waxa uu sii dheer in loo samaynayo agab u saacidaya inuu cadceedda charge-kiisa ka qaato oo aanu in dab la geliyaba badanka kaaga baahanin ee aad cadceedda ka dabaysan karto, oo ay u sii dheer tahay inuu leeyahay awood uu midabkiisa ku bedbedelayo oo hadba dharka qofka sita ama deegaanka uu yaallo isugu ekaysiinayo. waana qodobo aanay badigooda moobilada waaweyni lahayn, oo waxa uu guud ahaan ka samaysan yahay quraarad uu saacidayo frame aluminium ahi. waxa isaguna muhiima oo u baahan in barnaamij gaara laga diyaariyo inuu taleefankaasi yeelanayo system maskaxda qofka lagu xidhiidhinayo. ma aha mid aynu sidan fudud u fahmayno ee sharaxaad gaara ayuu inooga baahan yahay. systemkaas oo qofku waxa uu maanka ku hayo uu moobilkiisa ugu koobiyeyn karo, balse waqti xaadirkan waxa uu systemkaasi gaar u yahay bukaanada xanuunada neerfayaasha qaba. waxa uu taleefankaas ay Tesla soo wadaa si xooggan ula jaan qaadaya jiilka 5 ee tiknoolajiyadda ee soo aadan ee 5G-ga, oo moobilkaasi qaabka uu u shaqaynayo moobilada kale kaga horreynaya, iyada oo ay u sii dheer tahay inaanu ka tallaabsanayn jiilashii hore ee tiknoolajiyadda ee 2G,
3G iyo 4G-ga hadda lagu jiraba. qodobkan waa qodob muhiim ah oo uu moobilada kale kaga horreynayo oo badanka mar kasta oo abdheed cusub oo moobilada shirkadaha aynu adeegsanno ahi uu soo baxaba jiirashii hore ee teknoolojiyadeed hore ayuu uga sii durkaa. heer tusaale ahaan markaad sidato Samsung A10 oo kale uu waqti xaadirkan culays aayida dhan kastaba ka yahay ay sababtu tahay abdheetiska cusub ee Samsung ayaa soo kordhiyey system iyo features aanu kaasi la jaanqaadi karaynin ama agabkiisa uu ka samaysan yahay ay ku adag tahay inay la qabsadaan. markaasay waqti qaadanaysaa mar kasta oo aad amar siisaba inuu meeshii aadaa. Tesla ma yeelanayo dabcigaas isaga oo aan jiilashaas hore ka gudbin ayuu jiilkaa shanaadna la jaanqaadaya oo uu taleefanada kale kaga horreynayaa. waxaa taasna u sii dheer in taleefankan model Pi ee Elon Musk uu yeelan doono system cidda sidataa ay lacagta kriptiga ee Mars macdan ugu beddelan karaan. waana lacag hadda kripto ah laakiin Elon Musk uu wado qorshe ah inuu ka dhigo lacagta rasmiga ee Mariikha marka la tago ee la dego. waaba haddii la tago oo la dego waxa uu sii dheer in haddii uu qof leeyahay gaadhiga uu isla ninkan odaygahi soo saaray ee Tesla uu halkaas ka wadi karo gaadhigiisaasna oo moobilka uu ka maamuli karo, taasoo keensanaysa in moobilkaasi uu noqdo mid aad ammaankiisa looga fiirsaday oo aan ciyaarahaas lagu jabsan karin ee uu sistamka ammaankiisu adag yahay maadaama haddii la jabsado aan isaga uun lagu ekaanayn ee gaadhigaagiiba la maamulanayo. waxaasoo dhammi waxay shirkaddaas Tesla gelinayaan tartan xooggan iyo challenge ay shirkadaha teknoolojiyadeed la gelayaan, gaar ahaan shirkadda Apple. xifaaltan kale ayaa ka dhaxeeya labadoodaas oo ah in shirkadda Tesla mar ay kici gaadhay uu soo bandhigay Musk shirkadda Apple inay gadato oo ay kicitaanka ka badbaadiso si ay shirkaddaas Apple ka diiday inay gadato. dareenkaas loolan ee labada shirkadood ka dhaxeeya iyo Elon Musk oo fursad argosiya u arka soo saarista moobilkaas ayaa arrinka sii macaanaynaya. taleefankan la sugayo inuu saaxadda soo galana ka dhigaya mid xamaasad cusub la soo biira. markaad akhriyayso taariikhda shirkadaha teknoolojiyadda, shirkad kasta oo saaxadda ka baxday ama daciiftay waxa wiiqay oo saamaynteeda hoos u dhigay hal product ama hal agab oo ku cusub teknoolojiyadda qaybtii ay ku sheeganayd oo la soo saaray oo ay dadkii dhankiisa u yaaceen. shirkad kasta oo teknoolojiyadeed oo maanta taagani waa raadka shirkad hore u soo kacday, ha ahaato mid teknoolojiyadeed amaba mid kale shirkad kasta oo muddo adduunka qabsatana hal product ayaa wad u noqda, sida Nokia, Sony iyo BlackBerry. away shirkadahaasi sida ay ku bilaabmeen, heerka ay gaadheen iyo halka ay ku dambeeyeen ee shirkadahaasi ay ku soo afmeermeen amaba saaxaddii ay haysteen ay kaga baxeen. dhammaan waa qodobo u baahan in mid kasta barnaamij gaara oo xogahaas oo dhan tifaftiraya laga diyaariyo si aynu u fahanno isbeddelka teknoolojiyadda, xawaaraha teknoolojiyadeed iyo sida ay waayaha suuqa teknoolojiyadeed ku socdaan. markaynu xogtan aynu moobilkan dhowaan la sugayo ee Tesla isla soo eegnay, sida uu shaqaynayo iyo waxa laga filayo aynu aragnay, dhacdooyinka teknoolojiyadeed ee muddooyinkii u dambeeyey dhacayna aynu u fiirsanno, eriyada shaqaalaha shirkadaha waaweyn ee teknoolojiyadda in badan oo ka mid ah, iyo sidoo kale hoos u dhaca dhaqaale ee isdaba joogga ee shirkadaha teknoolojiyadeed la kulmayaan. waxaa runtii halkaas laga dhadhansanayaa in caalamka teknoolojiyaddu uu foolanayo, wuxuu dhali doono, sida uu u dhali doono iyo goorta uu dhali doonana aanay caddayn. balse innagu Soomaali ayaynu nahay oo wax kasta oo cusubba waynu ku yaacaynay, waynu adeegsanaynay, wixii laga baxana waynu daadinaynay innaga oo aan garanayn wax allaale iyo wax xog ah oo la xidhiidha. iminkana fursaddeenna sinaynan dayacayn ayaan filayaa ee moobilka dhowaan la isugu faani doonaa waxau noqon doonaa kaas Tesla ee Pi, waynuna u joogi waayuhu wejiga ay noola yimaadaan. barnaamijkan inahaas ayaynu kaga koobsanaynaa. wasalaamu calaykum.